هي بسم الله taariikhdu markay ahayd 11 bishii 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kale ah 1 maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose 2 saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose 3 أحمد محمد هاشم عرب لحي لباتن جرأة إنا عدي أحمد إسلو كل شيء شبه الله هوسه كواسو حفيز كحيرالين تعيمد قلب كسيدو كسو إيدي دنبيدا كلاء كمن نقشو أرره بيسان أوليدكو أودها قرن دوميس إيدي البرير إيدا هاسي أو كلاء كو تاريخ مركي أهيد طبان كي بيشي سيدي لباكن لحي طبان مرحوم عمر محمد أبيكر لابو مرحوم سرية جوتو بول إسماعيل أحمد إسماعيل مكيالو تاريخ المركز لسدي لا تنكي بشي تمنا الله بكون لحي طبعا 3 تاريخ تضبية لا تنكي بشي أفراد الله بكون تضبية طبعا مرحوم أكي سرية جوتو محمود حاج علي 4 تاريخ المركز هيد 4 لا تنكي بشي سجال الله بكون تضبية طبعا مرحوم أكي سرية جوتو حوجة عبد الله محمد شيخ حسن قروره iyo askari ilaalo ahaa lagu magacaabayay marxuum X double xooga Maxamed Bila Gacmay oo ka wada tirsanaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed 5 taariikhdu markay 16 bishii 2018 marxuum Cabdul Qaadir Daahir Diiriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed 6 taariikhdu markay 20 bishii 2019 marxuum Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud oo ahaa ku xigeenka xiriirlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah 3 xukun sane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay raacfaan taariikhdu markeed 31 bishii 12aad 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedeysanayaasha 19 bishii 7aad 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bishii 11aad 2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq